السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم داوديال ميل walba waad joogtaan iyo si walba oo aad nula socotaanba waxaanu idin leenahay halkani waa ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga. Goorsheegtu waxa ay ku beegan tahay daawadayaal xilligii aad hadahan oo kale aad nooga barateen in aanu si toos ah hawada idinku soo gudbino guud ahaanba warar wixii na soo gaadhay. Qodobada wararkan idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxa kamid ah waxaa guud ahaanba deegaanka si habsami leh uga bilaamay imtixaanka heer qaran ee fasalka 12aad ee u diyaar garowga jaamacadaha. Mas'uuliyiinta wakaalada ilaalinta deegaanka kaymaha macdanta iyo tamarta ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa faa'iidada ay leedahay ilaalinta deegaanku ardayda wax ka barata kulliyadda maareynta iyo adeegga shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. wasaaradda waxbarashada ee dalkuna waxa ay sheegtay in uu imtixaankii heer qaran ee fasalka 12aad si habsami leh uga socdo guud ahaanba dalka. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaanu daawadayaal xilli tabinteena wareed idinku haynaa. anigoo Cabdirasaaq Ibraahim Kalaasan hadduu eebbe idmo waan idin la socodsiin doonaa. وهاجاك داوديال مركله isku soo noqod wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan. waxa guud ahaanba deegaanka si habsami leh uga bilaamay imtixaanka heer qaran ee fasalka 12aad ee u diyaar garowga jaamacadaha. wariye Farax Bade ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya. waxaa si rasmi ah deegaanka iyo dalka uga bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee u diyaar garowga jaamacadaha fasalka 12aad. deegaanka Soomaalida oo kamid ah deegaanada sida xawliga ah u kobcay dhanka waxbarashada ayaa waxa ka qayb qaadanaya sanadka 2010 imtixaanka u diyaar garowga jaamacadaha in ka badan 10,000 oo arday oo ku kala galaya 98 dugsi oo deegaanka ah. haddaba wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim Aadan Mahad oo wehelinayo maayarka maamulka magaalada Jigjiga Mudane Ibrahim Maxamed Mubaarak ayaa waxay kormeereen dugsiga sare ee magaalada Jigjiga oo ka bilowday imtixaanka fasalka 12aad halkaas oo si sharciga waafaqsan lagu horfuray maadadii ugu horeysay ee imtixaanka heer qaran iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen kormeerayaasha loogu talagalay inay ilaaliyaan geedi socodka imtixaanka. waana kan wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim Aadan Mahad oo warbixin intaas dheer naga siiyay. waxa bilaabmay imtixaankii 12aadka ee lagu galiyay jaamacadaha. imtixaanka waxa ka qayb qaadanaya 10,008 arday iyo 281 ilaaliyaal ah iyo 63 kormeerayaal ah. imtixaanka wuxuu ka qabsoomay dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka kooban tahay degmooyinka gobolada iyo maamul magaalooyinkaba. waxa xusid mudan in sanad kastaba xilliga dabayaaqada sanadka uu qabsoomay imtixaankan heer qaran ee 12aadka iyo imtixaanka heer deegaan ee 8aadka. marka arday badanna way ka qayb qaadanaysaa guud ahaan imtixaamada oo dhan. waxaan leenahay dhammaan ardayda ka qayb galaysa sanad dugsiyeedkan imtixaanka una rajaynaynaa guul inay ka soo hin doonaan insha Allah. dhankiisana maayarka maamulka magaalada Jigjiga oo warbaahinta la hadlaya ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka heer qaran ee u diyaar garowga jaamacadaha u rajeeyay inay natiijo fiican imtixaanka ka keeni doonaan maadaama lagu jiro xilli tayada waxbarashada deegaanku heerkeedu aad u sareeyo. wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wehelinayaan qaar kamid ah agaasinada xafiiska waxbarashada ayaa waxay sidoo kale soo kormeereen habsami socodka imtixaanka ka socda dugsiyada sare ee Dhagaxleh iyo Bambaas oo ka tirsan degmada Gursum ee gobolka Faafan. sidoo kale goobaha imtixaankan sida rasmiga ah uga bilowday waxaa kamid ah magaalada Guday ee xarunta gobolka Shabeelle, magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar iyo magaalada Shineele ee xarunta gobolka City. waxaana soo kormeeray habsami socodka imtixaanka fasalka 12aad ee ka bilowday magaalada Guday gudoomiyaha gobolka Shabeelle iyo mas'uuliyiinta maamulka magaalada iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen furitaanka maadadii ugu horeysay imtixaankan heer qaran ee u diyaar garowga jaamacadaha. halka dugsiga sare ee magaalada Dhagaxbuurna sida sharcigu yahay lagu horfuray maadadii ugu horeysay imtixaanka goob ay wada dhan yihiin maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee kormeerayaasha imtixaanka. dhinaca kalena magaalada Shineele isaguna si rasmi ah uga bilowday imtixaanku ayaa waxay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmadu ay kormeereen habsami socodka imtixaankan heer qaran ee u diyaar garowga jaamacadaha.
imtixaankan heer qaran oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa intuu socdo la filayaa inuu ku soo dhamaado si nabadgelyo ah oo la mid ah sida uu ku soo dhamaaday imtixaankii heer qaran ee fasalka 10aad. mas-uuliyiinta wakaalada ilaalinta deegaanka keymaha macdanta iyo tamarta ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa u qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa faa'iidada ay leedahay ilaalinta deegaanku ardayda wax ka barata kulliyadda maareynta iyo adeega shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. wariye Cabdi Maxamed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo diyaariyay. maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga waxaa ka socday olole nadaafadeed oo loogu gogol xaadhayo xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo 5 Juun adduunka laga xusi doono. wakaalada ilaalinta deegaanka kaymaha macdanta iyo tamarta ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa wada dadaalo loogu diyaar garoobayo xuska maalinta ilaalinta deegaanka waxayna wacyigelino iyo olole nadaafadeed ka fulinaysaa magaalada Jigjiga. saakana waxay wakaalada ilaalinta deegaanku ay u qabatay kulan wacyigelin kulliyadda maareynta iyo adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. kulankan oo mid ardada faandheeriya lagaga siinayay ilaalinta deegaanku wanaaga ay leedahay iyo in qof kasta ay waajib ku tahay inuu ilaaliyo nadaafadda deegaankiisa. intaasi kadib ayaa waxa la guda galay ololihii nadaafadeed ay ka fulinayeen gudaha kulliyadda maareynta adeega shacabka lagagana nadiifinayay caagaga iyo qashinka qalalan. ololahan oo iska kaashadeen wakaalada ilaalinta deegaanka maamulka magaalada Jigjiga iyo kulliyadda maareynta adeega shacabka ayaa waxa si wada jir u fulinayay ardada wax ka barata kulliyadda iyo mas'uuliyiinta wakaalada ilaalinta deegaanka mas'uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga iyo mas'uuliyiinta kulliyadda maareynta iyo adeega shacabka. waxaana ugu horeyn warbixin naga siiyay waxyaabaha looga gol leeyahay ololayaashan maarayaha wakaalada ilaalinta deegaanka kaymaha macdanta iyo tamarta ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mawlid Hayr Xasan. ololahan waxa looga dan leeyahay in bisha June asalba maalinta environment-ga la yiraahdo June 5 marka bisha June sanad walba waxa la qaadaa ololaha nadaafadeed iyo dhir in la beero oo lagu ilaalinta deegaanka lagu xuso ayaa marka ujeedada ugu weyn waxa weey June 5 maadaama ay maalinta international loo aqoonsan yahay maalinta ilaalinta deegaanka ay tahay taas loo dalnaya waa la isku beegay marka ujeedada ugu weyn taa weey. marka ardayda waxaan ku wacyigelinaynay inay bac tuuraan iska daay qofka tuuray inay ka daba qaadaan xanjo inay tuuraan iska daay inay tadhacday ka daba qaadaan ayaan ku wacyigelinaynay. waxaan lahayn tusaale ahaan dalalka adduunka ee nadiifta yaa nadiif uga dhigay nadiifnimada ma la dhalatay muwaadinkiisa nadiif ka dhigay marka iyaguna saasay noola qaateen runtii durbaba muwaadinimo waxay muujiyeen qeyr caadi ah kulliyaduna waxay qorshe dhan oo waxay soo saareen 15 cishaba hal marin sidan loo nadiifiyo. waxa iyana sidoo kale aanu ku wareysanay goobta ololaha nadaafadu ka socday maayarka maamulka magaalada Jigjiga iyo maarayaha kulliyadda maareynta adeega shacabka iyagoo noo sheegay faa'iidooyinka nadaafadda iyo inay muhiim tahay in qof waliba uu ka shaqeeyo nadaafadda deegaankiisa. nadaafaduna waxa weeyaan waa magaranaysa waa sunne sideedaba diiniyana way tahay sunnana way tahay waxa weeyaan nadaafadda qofku marka shaqeeyo iimaankiisa taam noqonaya ka dhigan tahay. marka arintan arin muhiim ah maanta aan qaadnay shalayna waan qaadnay berrina waan sii wadi doonaa waa maalintii weyneed ee loo gogol xaadhay. marka waxaan leenahay dhammaan shacabka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga muwaadin agagaarkaaga nadiifi adoo ku mahadsan. waxaan ogsoonahay nadaafaddu waa bayska wax kasta oo nolosha bini'aadamka la xiriira haddaan nadaafadii jirin runaantii ma jiraan wax nolol oo suuroobaya ma ay jiraan. ardaygu marka uu galaaskii wax ka dhiganayo haddii meesha nadaafadeedu ay liidato way adag tahay ardaygu inuu wax fahmo waxa uu macallinku u sheegay inuu fahmo way adag tahay because nadaafada meesha ayaa liidata macallinkuna way ku adag tahay inuu wixii uu ugu talagalay ardada inuu gaarsiiyo way ku adkaanaysaa sababtoo ah haddaan nadaafad jirin nolol ma jirto adasanta dhinaca kale markaan ka eegno iyada oo macnaha aan moralka kaliya aanan ahayn haddana xagga kale caafimaadka markaan ka eegno waxa weeyaan qofku haddii uunan haysanin nadaafad ma caafimaad qaba ay ka dhigan tahay. qofku markuu caafimaad qabo environment-kiisa uu hagaajiyo nadaafadiisa uu hagaajiyo wax walba uu ka shaqeeyo goobta uu wax ku baranayo uu ka shaqeeyo halka uu ka shaqeynayo meel kasta uu nadiifiyo ayuu noqonayaa qofku qof caafimaad qaba bulshaduna markaas ayay keeni kartaa horumar. ugu dambeyn ardadii ololahan fulinaysay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ka shaqeynta nadaafadda iyo bilicda kulliyadda ay wax ku baranayaan. bartaan wax ku baran inaan nadaafsano waa waajibna wada saaran haddaan nahay dhalinyarada deegaanka Soomaaliya dhammaan ma aha anaga bis wax barana laakiin waa dhammaan wixii muwaadin ee dhiig muwaadinimo leh waa inuu guriga hortiisa qashinka ka qaadaa uu nadaafad meel nadaafad wax ku barto qof bila nadaafad wax ma baran kara wax barashada nooral ma yeelanaysid laakiin haddii nadaafad jirto
meel bilic qurxoon nadaafad leh waxbarashaduna way qurxoonaysaa maalin walba indhaha meel qurxoon markay qabanayaan marka nadaafadan maanta aad wallaahi si fiican baan uga qayb qaadanay haddana waan wadaynaa maalin walbana waan qabanaynaa guriganaga iyo meel walba oo deegaan kamid ah nadaafada waan ka qabanaa wadada horumaray wadan walba dadkooda horumariya dalkanaga waxaa naga go'an inaan horumarino nadaafadiisa ka qayb qaadano horumarkiisa ka qayb qaadano dhan walba dalkanaga maskaxdana inta caafimaad qabno marka waa ballan aan dawladana ka qaadno inaan dalkanaga ka dhigano dal cagaaran qorshaha horumarka cagaaran waan fulinaa insha Allah hadii la yiraahdo ololahan laga fulinayo kuliyada adeega iyo maareynta shacabka ayaa mid loogu gogol xaadhiyo xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo alku dhig looga dhigay waa la dagaalamayna wasakhda caagaga iyo bacaha waxaa howlka shirarka ee kuliyada maareynta iyo adeega shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay shirkii qiimeynta waxqabadka adeega caafimaadka deegaanka ee 10 bilood ee la soo dhaafay wariye Lumaan Cadde Axmed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinaya waxaa howlka shirarka ee kuliyada macadka maareynta iyo adeega shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ka qabsoomay isla markaana lagu soo gabagabeeyay shirkii qiimeynta waxqabadka caafimaadka deegaanka ee 10 bilood ee la soo dhaafay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wakiilada xafiiska caafimaadka u jooga gobolada deegaanka madaxafiisyada degmooyinka maareeyaasha xarumaha caafimaadka ee deegaanka waxaana halkaasi la isku eegayay dhanka adeega caafimaadka deegaanka halka uu taagan yahay iyo waxa u baahan in la kobciyo iyo in la saxo si ay bulshada deegaanku iyo magaalada meel kasta ay ku sugan yihiin ay u helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran waxa kaloona halkaasi lagu soo bandhigay baahiyaha dhanka caafimaadka ka jira deegaanka si qorshaha sanadka cusub ee 2011 ee fowda lagu soo haya loogu darsado waxaana gabagabadii kulankan qiimeynta ah oo socday muddo 2 cisho ah ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Caydarus Axmed waxaan soo xirinaynaa qiimeyntii noo socotay muddada 2 cisho ee ku salaysneed dhinaca aan ku qiimeynayna dhinaca adeeg bixinta dhinaca maareynta ama dhinaca hogaaminta sidoo kale aan ku qiimeynayna dhinacyada kala duwan ee dhaqangelinta ama hergelinta xirmooyinka iyo reformyada loogu talagalay in lagu dardargeliyo adeega caafimaadka sidoo kale qiimeyntii aan ku sameynay taageerada gaarka aynu ka helno federaalka ama special supportiga loo yaqaano iyo isku duwidda iyo koordinate gareynta hay'adaha sidoo kale sida dhinaca maamulka waxa weeyaan logistiga iyo ambulaansiyada iyo sida loola tacaalayo loogana diyaar garoobayo emergenciyada iyo isbedelada xilliga sidoo kale sidii aynu waxa weeyaan u hirgelin lahayn arinta isbedelka ama dhalan roogitaanka aan ku keenayno caafimaadka degmooyinka iyo xirmooyinka maamulka suuban ee degmada ilaa iyo xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale isticmaalka gashiyada kala duwan ee heshaan iyo sidii loo qorsheyn lahaa iyo maareynta xogtaba sidoo kale qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay kulankaasi oo dhankooda aan wareysiyo aanu la yeelanay ayaa cadeeyay inay kulankani ay wax weyn ay ka dhaxleen kana go'an tahay inay sii dardargelin doonaan howlaha shaqo ee bulshada ay u hayaan waxa weeyaan halkan waxaan ku jiray muddo 2 maalmood oo noo soo socday qiimeyntii waxqabadkii waxa weeyaan sanadkii la soo dhaafay adeega caafimaadka iyo heerdaboolka caafimaadka deegaanku waxa weeyaan darajada uu joogay oo waxa weeyaan health center iyo rug caafimaad iyo waxa weeyaan si hoose loogu qiimeynayay iyo waxa weeyaan xafiiska caafimaadka ilaa heer gobol ilaa heer deegaan iyo sidoo kale sidii waxa weeyaan qorshayaasha sanadka 2011 qorshayaasha caafimaadka adeega caafimaadka waxyaabihii lagu dari lahaa iyo waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeega caafimaadka ee xarumaha alxamdulillah si fiican buu noogu dhamaaday maanta ayuu noo soo gabagaboobay waxa weeyaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa qorshayaasha xukuumaddu ay nasiisay iyo waxa weeyaan tababaradii noocyadoodii kala duwanaaba inay say ahayd aan u gaarsiino bulshadii iyo goobihii loogu talagalay ta kale waxaan qorshahanagu waxa weeyaan tababar nagu ku jiray tababar maaragtay lagu kobcinayo sidii hore adeegyada caafimaadka hore loogu sii wadi lahaa ta kale waxaa ku jirto oo kale oo ka wada hadalay sidii maaragtay qorshaha 2011 baahida caafimaadka qaybaheeda kala duwan kor loogu qaadi lahaa oo loogu qaadi lahaa marka howlahaas nasiib wanaag guulo badan oo maaragtay iyo aqoon kororsi badan baan ka helay annaguna aad baan uga faa'iideysanay dhinaca maskaxda iyo aragtida aad baan uga faa'iideysanay insha Allah waxaan filaynaa inaan ku guuleysan doono annaguna ballan waxaan ku qaadaynaa haddaan nahay madaxfiisada caafimaadka inaanu arinta aan kor u qaadayno kana mara dhalin doono qorshayaasha dawladda ee loogu talagalay maaragtay horumarinta caafimaadka
si kastaba ha noqotee waxaa sanadihii u dambeeyey isi soo taraya adeegyada dhanka caafimaadka ee bulshada deegaanka la gaarsiinayo miyi iyo magaalada meel kastoo ay joogaan waana mid ay bulshada deegaanku ay ku diirsadeen adeega dhanka caafimaadka ee xukuumadda deegaanku ay la barbar taagan tahay qiimayntanna waxay sii karaargelinaysaa inay mar walba ay bulshada deegaanku ay helaan adeegii caafimaada ee loogu talagalay xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida iyo etoobiyana waxa uu gunta u gaabsaday ka xaqabtiridda bulshada deegaanka dhanka adeega caafimaadka ee loo igmaday waxaa degmada qabri bayax ee gobolka faafan lagu soo gabagabeeyey tababaray ujeedadiisu ahayd kobcinta garaadka aqooneed ee shaqaalaha ka howlgala barnaamijka BSMB loona qabtay qaar ka mid ah howlwadeenada barnaamijkan oo ka kala socday gobolada iyo degmooyinka faafan iyo erara wariye maxamed cumar ceelaabe ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinaya deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxa uu kamid yahay deegaanada hodanka ku ah kheyraadka dabiiciga waxaana mara webiyo dooxooyin iyo laga waaweyn isla markaana waa dhul fidsan oo ku habboon dhul daaqsimeedka iyo wax soo saarka haddaba sanooyinkii u dambeeyey isbedelada horumareed ee ka muuqanaya deegaanka waxaa qayb ka ah dib u jalleecidda xukuumadda deegaanku ku samaynayso kheyraadka deegaanku leeyahay isla markaana iyadoo laga duulayo bayaanada dib loo habeeyey waxaa xoogga la saaray in wax badan laga qabto saamaynta ku iman karta kheyraadka deegaanka kaasi oo saamayn u keeni kara dadka duunyada iyo kheyraadka deegaanka si haddaba kheyraadkaasi bulshada looga faa'iideeyey waxaa xoogga la saaray barnaamijyada lagu dabaqayo ama lagu ilaalinayo kheyraadka dabiiciga ee deegaanka haddaba barnaamijka damaanad qaadka cuntada iyo badbaadada wax soo saarka ee BSMB ayaa qayb ka barnaamijyada kaalin ka qaata dadaalada lagu ilaalinayo kheyraadka dabiiciga wuxuuna barnaamijkani BSMB uu ka howlgala 46 degmo oo ka mid ah deegaanka isla markaana iyadoo laga duulayo jooyinka u yaala xukuumadda deegaanka waxa uu guud ahaanba deegaanka ka socda dardargelinta lagu sameynayo barnaamijkani waxaana gobolada deegaanka ka socda dadaalo lagu kubcinayo howlwadeenada barnaamijkani haddaba qaar ka mid ah howlwadeenada barnaamijka gobolada erar iyo faafan ayaa tababar loogu soo xiray degmada qarbayax tababarkan oo ay ka faa'iideysanayeen howlwadeenada ka shaqeeya barnaamijkani gobolada faafan iyo erar degmooyin ka mid ah ayaa muddada u socday waxa ay ku baranayeen cutubyo ay ka mid yihiin nidaamka dabagalka iyo qiimeynta barnaamijkana nidaamka ilaalinta hantida barnaamijkana kobcinta awoodda howlwadeenada iyo nidaamka biyo ururinta iyo horumarinta dhuldaaqsimeedka iyadoo sidoo kale xubnahan ay kala qaadanayeen khibrad wadaag dhammaantoodna la iskugu keenay degmadaas qarbayax si ay khibrado dheeraada u kala qaataan ayaa tababarkan isugu jiray cashiro iyo falsafeedyo lagu siinayo goobaha isbedelada laga keenay ee caraguurka iyo ilaalinta deegaanka iyo dhuldaaqsimeedka iyo xidhka waraarada ama gaaliyada ee qaar ka mid ah qabaliyada hoos yimaada degmadaas qarbayax tusaalooyin lagu siiyey waxaana ahmiyadda tababarkan iyo isbedelada uu keenayo barnaamijkani wax ka weydiinay farxaan cilmi cabdilaahi oo ka socday qaybta qiimeynta iyo dabagalka barnaamijkani BSMB ee xafiiska horumarinta beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ee deegaanka tababarkan ayaa ujeedadiisu waxay tahay ma garanaysaa in la kobciyo awoodda xagga fahanka iyo awoodda shaqaalaha ka howlgala barnaamijka iyo sidoo kale guddiyada kala gedisan ee ka howlgala barnaamijka ee heer degmo shaqaalahan sida la soo waxaa ka soo qayb galay degmo kastaba ilaa iyo 14 xubnood oo shaqaale ah 14 xubnood waxay yihiin waa shaqaale kala gedisan oo nin walba uu leeyahay khibrad gaar ah uu leeyahay barnaamijka ku aadan casharada laga bixinayay ma garanaysaa dhowrka cisho ee barnaamijka tababarka oo socdo waxaa ka mid ah casharada nidaamka dabagalka iyo qiimeynta sidoo kale waxaa ka mid ah maareynta khataraha waxaa sidoo kale ka mid ah adkeynta guddiyada sidoo kale waxaa ka mid ah casharada la qaadanaya nidaamka loo maareeyo iibka barnaamijka iyo sidoo kale nidaamka xirxirka carrada ee la xiriira kheyraadka dabiiciga dhankooda howlwadeenada ka shaqeeya barnaamijka BSMB ee ka faa'iideysanayay tababarkan oo wax ka weydiinay ahmiyadda tababarkan iyo isbedelka uu keenaya geed socodka barnaamijkan ayaa waxay yiraahdeen tababar waxaa loo qabtay ku saabsan productive safety net program oo ah barnaamijka programka howlgala degmada qarbayax tababarkan ayaan waxaan kaga hadlaynay afarta mawduuc oo ah monitoring and evaluation risk management iyo qaabka iibka tababarkan oo noo socday muddo 7 cisho ayaan waxaan u qaadanay sidii loogu talagalay annaga haddaan degmo ahaan nahayna waxaan rajaynayaa inaan heer qabale inaan u dhaadhicino ilaa heer center waxaan ka mid ahay shaqaalaha xafiiska beeraha degmada qarbayax marka waxaan mawduudanba hadda noo socday tababar ku saabsan dhowr qaybood isugu jiray tababarkaas oo aad u muhiim ahaa daryeelka carrada la dagaalanka waraarada samaynta gabyanka waxyaabo badan tababar aad ugu miibsanay oo dhowr degmo oo meesha isku nimid xafiiskan degmada qarbayax ayaa noo socday kaasoo aad aan uga faa'iidnay
tobabaradan ayaa qayb ka mid guud ahaanba kor loogu qaadayo garaadkooda aqooneed ee howlwadeennada mashruucan BSMB kaasi oo tobabarkan uu ka socdo guud ahaanba gobolada deegaanka. weli daawadayaal halkaad sida tooska ah noogala socotaani waa ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga. wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegtay inuu imtixaankii heer qaran ee fasalka 12aad si habsami leh uga socdo guud ahaanba dalka sida uu inoogu faahfaahinayo Ibrahim Cabdi Muuse. imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad ayaa ka bilowday guud ahaanba dalka waxaana imtixaanka qaadanaysa arday ay tiradoodu aad u badan tahay wuxuuna imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad ka dhacaya 993 goobood oo dalkeena Itoobiya gudihiisa haddaba mudane Arraage Maamir oo kamid ah mas'uuliyiinta u xil saaran howlaha imtixaanka isla markaana ka howlgala wasaaradda waxbarashada ee dalka oo wax laga weydiiyay qaab socodka imtixaanka fasalka 12aad ayaa sheegay inayna wax dhibaato jirin oo imtixaanku si habsami leh uga socdo guud ahaanba dalka. اوكي በመጀመሪያ በሁሉም የ993 የፈተና ጣቢያዎች በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ ፈተናው ተጀምሯል። ይሄንን እንደዚህ በሰላም እንዲጀመር ለማድረግ የ10ኛን ክፍል እሁድና ቅዳሜ በተገቢ ሁኔታ ገምግመን እሁድና ቅዳሜ ላይ ያገኘናቸውን ግብአቶች ለዚህ ለ12ኛ ክፍል አጀማመር በሚጠቅም መልኩ አድርገን hadda si degan oo nabada ayuu imtixaanka fasalka 12aad uga bilowday guud ahaanba 993 goobood oo imtixaanku ka dhacayay annaguna si aanu hawsha imtixaanka ugu guuleysano waxaanu labadii maalmood ee sabtidii iyo axadii qiimeynay qaabkii uu dhacay imtixaanka fasalka 12aad kadibna waxaanu ka duulnay natiijadii halkaasi nooga soo baxday arrintaasina waxa ay si weyn nooga caawisay qaabkii aanu u abaabuli lahayn imtixaanka fasalka 12aad kadibna waxaanu xidhiidh la sameynay dadka mas'uulka ka ah goobaha imtixaanku ka dhacayo isku dubradayaasha imtixaanka iyo waliba hay'adaha dhanka amniga ee deegaanada dalka si uu imtixaanku u noqdo mid u hirgala sidii loogu talagalay arrintaasina waanu ku guuleysano imtixaankii hadda waxa uu socdaa si habsami leh sidoo kale waxaanu saacad kasta iyo maalin kasta xidhiidh la sameynaa xarumaha imtixaanku ka socdo sidoo kale waxaanu isku xidhnaan leenahay isku dubradayaasha kalastarada oo ay tiradoodu dhan tahay 138 qof waxa kale oo iyaguna hawshan imtixaanka ka qayb qaadanaya 148 macallin oo khibrad u leh howlaha imtixaanka isla markaana laga diray magaalada Addis xarunta dalka kuwaas oo iyaguna ka howlgalaya deegaanada taageerada gaarka la siiyo sida awgeed hawshii imtixaanku waxay u socotaa si caadi ah oo wax dhibaato ma jirto imtixaanka dambe ee la qaadi doonana waxaan rajaynayaa inuu si caadi ah u dhammaan doono maxaa yeelay waxaanu sanadkan aad uga howlgalnay sidii unan qashqashaad uga iman lahayn imtixaanka fasalka 10aad iyo 12aad oo aynan xaaladdu u noqonin sidii sanadkii hore oo kale sidoo kale waxa uu sheegay mas'uulku inay dadaalkooda wadayaan ilaa iyo inta ay ka dhamaanayaan imtixaanaadka heer qaran guud ahaanba daawadayaal waxaa intaasi nagaga dhan warar wixina soo gaadhay oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee Soomaalida Itoobiya ee ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga anigoo Cabdirasaaq Ibrahim Claasa ayaa daawadayaal si toos ah idinku waramayay aniga khiyaartii kale ee sida heerka sare ah igala qayb qaadatay xilli tabinteena wareedba idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu Ramadan Kareem